maamulka dawladda hoose ee degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa maanta bilaabay sameynta kaabad muhiim ah oo ku taala jidka isku xidha degmooyinka Baki iyo Boorame ee gobolka Awdal. Dhismaha kaabadan ayaa iyadoo ah mid muhiim u ah isku socodka gaadiidka u kala goosha degmooyinkaasi. bilowga dhismaha kaabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Baki ee dhawaan lagu soo doortay doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday Somaliland. dhagax dhiga dhismaha kaabadan ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye wuxuuna xuseen golaha deegaanka ee degmada Baki ay bilaabeen horumarinta degmada taasi oo ku tilmaamay inay tahay ballanqaadyadii ay bulshada deegaankaasi u ballan qaadeen xilliyadii ay ku jireen ololaha doorashada golaha deegaanka waxaana ka mid ah hadaladiisii dadkayga markii aan doorashada galanay waxaan ugu ballan qaadnay waxa inuu isbedel imanayo inaan isbedel keenayno isbedelku inuu ka wanaagsan ahaado waan u sheegin marka waxaan jecelahay horta wixii dadku ka soo baxay iyaga ee dakhli ee nooga soo baxay dadku cashuur bixiyaan inaan degmada gelino oo yaani aan mashaariic ugu abuuro oo yaani wadooyinka ugu sameeyno iskuulada ugu ranjeeyno ceelasha loogu qodo ugu yaani adduunka ugu baaqno ayuu go'aankaygu yahay waxaan idin sheegaynaa inuu mashruucii labaadan fulinay yahay wadada tan uun maahane 5 wado oo kale ayaa jira oo ku xidha gabiley dila aan xoori meeshan Djibouti على حال أو برجع وبحلا أنتوا نوع عنو جوجين وأنا دقمة ودبورلي هو هذا حتى ما أنت سميسو بريروب كده هذا ما مريو أقول له ما نروح حمارية وعن عطسنا ما كان دولة الحقيقة هذا قبتها عطسنا إن نجع ويا كل مشاريع رأس دقمة دخل جود ما بدنا إنه دقمة يعني وقفنا حدنا وحي كصبح إن نروح قلنا ونديبو قلنا دقمة الله ما ينقطع مركا وأنا وش شيء هو تذكيرك شعبي جيجا يجون الحوك كتار عن ما أنت أودنا دقيقة بحسي إذا أنا لا بحين ده كل حاجة تصير أدو يعني هذا شلال تاي هذا جاني تاي هذا يوم لا بحية طيبة دقيقة يا ومش هيك بلا بس وحنا كنت نجلس على تلنا إن نكروت نو إلا هالك قصة بلا ده شركة إن ودنا وذكروا وحن كلا قصة نوجد تاينا تدوات كم بلونه حرقي يسكو حلا بكي وبين الحدود برتا degmadu waxay wax soo saarkeedu waa beeraha mustaanada weeyaan beer biyuudka marka inta yar ee dakhliga leedahay inay suuq helaan ama ay wadadii suuq u mariyeen helaan baan ay go'aan ku yahay soo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay dhagax dhiga dhismaha kaabadan ku taala jidka isku xidha degmooyinka Baki iyo Boorame ee gobolka Awdal mid ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee dhawaan loo soo doortay degmadaasi Baki wuxuuna ku bilaabay hadalkiisa aagad ku arkaysaa faaha waxqabadka maanta halkan ka socda waa bilowgii ugu horeeyay ee golaha deegaanka cusub uu doonayo inuu barnaamijyadii dadka u sheegay inuu rumeeyo wayna ka go'an tahay inuu hirgeliyo wixii muhiim bulshada u ah haday tahay waxbarashada jidadka caafimaadka waxyaalaha asaasiga oo ahlulbawle uu yahay jidku way ka go'an tahay golaha inuu fuliyo muxuu ahaa ballanqaadadiisii degmada nafsiida barnaamijyadii dhaqaalaha iyo cashuurihii waxay ku tali jireen in sidoodii ku soo celiyaan iyadoo marka hore aw basanbaas muxuu ahaa yimidayda xilliga ku dheeraday markuu qofka sharciga intii loo ogolaaday ay dhaafto kulli culays badan bay ku keenaysaa maanta se waxaan isleenahay waad aqaajiseen si kastaba haatee tallaabada ay qaadeen golaha deegaanka ee degmada Baki ay ku sameynayaan jidadka isku xidha degmadaasi iyo degmooyinka kale ee ku yaala gobolka Awdal ayaa isagu noqon doona mid kor u qaadaya dhinaca horumarinta bulshada degan degmadaasi Baki ee gobolka Awdal. Hashim Sheekh Umar Good, Somalisat TV, Boorama.